hogaamiyahoodii iyo mid ka mid a aas-aasayaasha ururka Xisbullah Xasan Nasrallah oo duqeyn dhinaca cirka ee Israa'iiliyiintu ku dileen Jimcihii. Xisbullah ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay wacad ku martay in ay sii wadi doonaan dagaalka barakaysan ee ay kula jiraan Israa'iil, isla markaana uu ku biiray Nasrallah saaxiibadiisa shuhadada. Waxa kaloo ay sheegeen in ay garab taagnaan doonaan dadka reer Falastiin. Dilka Xasan Nasrallah iyo waxa ay Israa'iil uga dhigan tahay ayaan ka wareysan doonaa Cabdixakiin Macalin oo si dhow ula socda arrimaha Bariga Dhexe. Hase yeeshee marka hore aan eegno Xasan Nasrallah oo muddo ka badan 30 sannadood soo hogaaminayay Xisbullah iyo geeridiisa sida ay u dhacday. Xasan Nasrallah oo Xisbullah hogaaminayay in ka badan 30 sannadood ayaa noqonaya bartilmaameedka ugu xooga badnaa ee ay Israa'iil disho toddobaadyo ay sii xoogeysanayso dagaalka ay Israa'iil kula jirto Xisbullah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qaadeen weerar cirka ah Jimcihii xilli hoggaanka Xisbullah ay ku shirayeen xaruntooda ku taalla koonfurta Beirut ee Daahiya. Israa'iil ayaa sheegtay in ay ku garaacday xarunta ururka Xisbullah qaraxyo waaweyn oo ruxay caasimadda Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen 91 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymahaasi oo dhulka la simay 6 guri oo dabaq ah. Ali Karki oo ahaa taliyaha jabhadda koonfureed ee Xisbullah iyo taliyayaal kale ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka sida uu sheegay militariga Israa'iil. Iiraan ayaa Sabtidii waxa ay ku dhawaaqday in jenaraal caan ah oo ka tirsan ilaaladeeda kacaanka ee uu Mareykanku cunuqabataynta ku soo rogay uu ku dhintay isla duqeyntan. Abbas Nalifurshan oo da'diisu ay tahay 58 sano jir oo Mareykanku u aqoonsaday in uu yahay ku-xigeenka taliyaha howlgallada ee ilaalada ayaa la dilay Jimcihii sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iiraan ee loo yaqaano IRNA. Weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Lubnaan iyo dilka Xasan Nasrallah ayaa ah mid si weyn u sii hurinaya dagaalka ka socda Bariga Dhexe, iyadoo xilligan ay sii kordhayaan xiisadda iyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Dhawaqa seeriga duulaanka ayaa laga maqlay bartamaha caasimadda ee Israa'iil iyo garoonka caalamiga ah ee Tel Aviv galabnimadii Sabtida, waxyar kadib markii uu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu uu ka degay garoonka isaga oo ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka Mareykanka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray Yemen la qabtay waxyar kadib markii la maqlay seeriga. Lama soo warin ama lama hubo wax khasaare ah oo ka dhashay. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga in gantaalkani uu ahaa mid lagu weerarayay diyaaradda uu saaraa Netanyahu iyo in kale. Benjamin Netanyahu ayaa soo gaabiyay safarkiisa dalka Mareykanka si uu ula tacaalo dhibaatada sii kordhaysa ee dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xisbullah, ayaa lagu yiri warar ka soo baxay Israa'iil. Generaalka lagu magacaabo Cornel Nadaf Shohani oo ah afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii cirka ee Jimcihii ka dhacay Beirut uu salka ku hayo sanado badan oo lagu daba jiray Xasan Nasrallah oo ay weheliso xogo dhab ah oo ka dhigtay mid la hirgelin karo. Waxa uu diiday in uu sheego rasaasta iyo hubka loo adeegsaday weerarka ama uu qiyaas ka bixiyo dhimashada rayidka. Kaliya waxa uu sheegay in Israa'iil ay qaadayso tallaabooyin ay kaga fogaanayso rayidka markasta oo ay suuragal tahay. Dhinaca kalena ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay tacsi ugu direen xulfadooda Xisbullah. Nasrallah waxa uu si joogto ah ugu tilmaamay gantaalada ka dhanka waqooyiga Israa'iil inay tahay muujinta taageerada Xamaas iyo Falastiiniyiinta Gaza. Kadib xaqiijinta geerida hogaamiyihii Xisbullah, dadku waxa ay bilaabeen inay rasaas hawada u ridaan gudaha magaalada Beirut iyo guud ahaan dalkaas si ay u muujiyaan murugada iyo geerida Xasan Nasrallah. Israa'iil ayaa wacad ku martay in ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah Xisbullah. Wasiirka difaaca ee Israa'iil
yovan gallant ayaa ku tilmaamay weerarkan weerarkii ugu muhiimsanaa ee lala beegsado tan iyo markii la aasaasay dowladda Israa'iil hogaamiyayaasha Xisbullah. Israa'iil ayaa wacad ku martay in ay sare u qaadi doonto cadaadiska ay ku hayso Xisbullah ilaa ay ka joojinayso weerarada ay 10,000 oo Israa'iiliyiin ka barakaceen, iyadoo sidoo kalena isla weeraradani ay ku barakaceen bulshooyinka ku dhow xadka dalka Lubnaan. Dagaaladii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxaa ku barakacay in ka badan 200,000 oo Lubnaaniyiin ah usbuucyadii lasoo dhaafay sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Ku dhowaad 60,000 oo Israa'iiliyiin ah ayaa laga daadgureeyay guryihii ay ku noolaayeen ee ku teedsanaa xuduudda Lubnaan muddo sanad ku dhow. Horaantii bishana dowladda Israa'iil waxay sheegtay in ay joojin doonto weerarada Xisbullah ee dhinaca waqooyiga. Xisbullah ayaa waxa ay bilowday in ay gantaalo ku garaacdo Israa'iil oo ay ku taageerto Gaza 8 Oktoobar, maalin kadib markii dagaalyahanada Xamaas ay weerar aan horey loo arag ku qaadeen Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen 1,200 oo qof, isla markaana ay ku afduubteen 250 qof oo kale. Tan iyo xilligaasi labada dhinac waxa ay ku howlanayeen weeraro ka dhana xuduudka, taasoo si tartiib tartiib ah usii korortay oo barakicisay 10,000 oo rayid ah oo ku nool labada dhinac ee xadka. Dagaalka ayaa si weyn usii xumaaday toddobaadkii hore markii fooneeyayaasha gacanta la qarxiyay, iyadoo lagu eedeeyay in ay Israa'iil ka dambeyso weeraradaas. 10,000 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ayaa dhaawacyo daran ay kasoo gaareen indhaha, wejiga iyo addimaha. Israa'iil ayaa la rumaysan yahay in ay ka dambeysay weerarka. Israa'iil waxay sidoo kale ku dishay Beirut dhowr taliyayaal sare oo Xisbullah, gaar ahaan 2 toddobaad ee lasoo dhaafay marka laga soo tago weerarada iyo duqeyntii lagu dilay hogaamiyihii Xisbullah Xasan Nasrallah. Haddaba dilkan iyo waxay uga dhigan tahay xiisadda Bariga Dhexe iyo Israa'iil inay ku faani karto dilka hogaamiyahan ayaan wax ka weydiiyay Cabdixakiin Macalin oo si dhow ula socda xiisadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada London. Ridwan waa maasan tahay adiga iyo muxuu ahaa meediyahaada ama muxuu ahaa TV-gaada weyn ee qiimaha leh. barnaamijkan qiimaha badan noo soo abaabushay maanta iyo martiqaadkan aad ii fidisaba. Marka dabcan sidaan la soconno qallaasa aad iyo aad u xoog badan ayaa ka socda Bariga Dhexe guud ahaan marka laga soo bilaabo inta dambe haddaan ka soo bilaabno 7 Oktoobar markii maaragtay dagaalkii Duufaanul Aqsa loo bixiyay ay maaragtay weerarka ay ku qaaday Xamaas gudaha Israa'iil. Markaas wixii ka dambeeyay xaaladda Bariga Dhexe cirka ayay isku sharartay, qallaaso fara badan iyo dhibaato fara badan ayaa meeshaas ka dhacay. Isla markaas oo 7 Oktoobar ah ayay maaragtay Xisbullah Lubnaan iyagana ay 8 Oktoobar iyagana madaafiic iyo waxa isku bilaabeen maaragtay dhanka waqooyiga Israa'iil. Marka halkaas Israa'iilna ay iyagana madaafiic isku weerarsanayeen maaragtay teel ah, marka dagaal toos ma ahayn. Marka maalintaas ayay ku dhawaaqeen in ay garab taagan yihiin maaragtay Falastiiniyiinta iyo reer Gaza, sidaas awgeedna ay u helin doonaan wax walba ay ku kalifto. Marka bayaanka maanta ay soo saareen Xisbullah waxay leeyihiin anaga oo ku talagalnay aan isu diyaarinay in aan maaragtay aan dad shuhada ah aan ku bixinno dagaalkaas ka socda Falastiin sida loo xoreyn lahaa Falastiin iyo Gaza. Marka tan oo kalena waan filinaynay. Marka waxaan u diyaarsanay maaragtay sida ay hadalka u dhigeen hogaamiyaha marka Xasan Nasrallah maanta jimcihii qalabtii u dilay maaragtay weerarkaas ay soo qaadeen maaragtay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil. dabcan ninkaasi 32 sano ayuu soo hogaaminayay xisbiga ayuu ka amiinul caam. بالمناسبة ninka isaga ka horeeyana waa la dilay Musawi 1992 ayaa la dilay isagana oo 32 sano ka hor ayay ahayd. Xasanna wuxuu hogaaminayay 32 sano. Marka kii ka horeeyana waa saasa loo dilay isagana soo gaari saaran isaga iyo xaaskiisii wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Beirut. Xasanna Nasrallah waxaa lagu dilay isagana muxuu ahaa koonfurta magaalada Beirut qalabnimada jimcadii. Marka xisbigu wuxuu leeyahay halkii kuma sii wadeena waxaan joojinaynaa malaha
halgankii iyo dagaalkii iyo wixii aan wadin meesha ka soconaya. waa gartay marka Israel ma tahay guul ay ku faani karto in hogaamiyihii Xisbullah ay ka takhalusto? wallahi dagaalka sida hadda aan arkaynay dabcan dagaalku wuxuu kala dhaxeeyaa ciidan iyo shacab iyo dad iyo dhul meel degan. marka sideedaba marka la fiiriyo halganka markuu halgan meel ka jiro ama wadan duulaan lagu yahay ama wadan la haysto ama dad raba inay isxoreeyaan waxaa la yidhahdaa muqaawamada isticmaala ama resistance waxaa loo yaqaan iska caabinta. marka nimanka wax iska caabiyo oo dagaalamo oo ku talagalay ahayeen waxay isticmaalaan waxay ahayd dagaal oo gorilla ah dhulka ka dagaalo dhuumaaleysi ah dhulka hoostiisa la galo geedaha lasu fuulo waxyaaba noocaas ay ku dagaalamayaan. waa niman marka hab jabhad u abaabulan laakiin xisbullah waxay kaga duwan tahay jabhadihii la yaqaanay oo noocaas ahaa. waa jabhad sida dowlad oo kale u dhisan, nidaamkay u dhisan tahay, dhaqaalehay haysato, ciidamadeeda, tababarkeeda, waxeeda dhan. marka waxaad moodaa in dagaalka hadda ninkan hogaamiyaha Israa'iil Netanyahu waxaad u moodaa maadaama dagaalkii lugta sida hadda dad badan ku taxliiliyeen ay ku falanqeeyaan oo xataa ay ka mid yihiin wargeysyada waaweyn ee kasoo baxa Israa'iil ama Mareykanka ama reer galbeedka ay leeyihiin ma aragtay ninkaas Xamaas uu ka adkaa waaye mana ka adkaan karo. guryo iyo wuu dudumiyey wax badan wuu baabi'iyey laakiin ragga is hayeen weli siday u taagan yihiin hubkoodana way sidooday u haystaan. marka nin dhulkiisa ku dagaalamaana dabcan lagama adkaan karo oo dhulka hoostiisa ku jiro. marka maadaama dagaalkaas uu ku fashilmay ragga is hayeen ma aragtay waaweynaana uu waxba ka qaba waaye ayuu marka wuxuu u leexiyey ragga hogaamiyaasha siyaasadda sida wuxuu ahaa Ismaaciil Haniya, Xasan Nasrallah, ragga noocaas oo kaleeta, Fuaad Shukri, ragga waaweyn oo noocaas oo kaleeta oo madaxda siyaasiyiinta ah inuu beegsado oo dabcan ayamka xafiisyadooda fadhiya ama meelo hoos kaleeta sharar ka qayb galaya taasoo marka uu iskaga qaadayo heeryada ah inuu dagaalkii Gaza ku fashilmay asna bal rabo inuu isu tuso inuu ma aragtay uu guuleysto. marka waa nin guul raadinayo guulna inaan u muuqan ma aragtay marka wuxuu ku faani karaa meesha ka muuqdaa